waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo munaasabada xuska maalinta isku furanka adduunka ka hortagga laga sameeyo oo adduunyada oo dhan ay ka sameynayso isku furanka marka aan wax yar ka ifiyo siyaabaha uu ku dhaco inkastoo si fiican loo sharaxay haddana waxa weeyaan waxaan jeclaystay in aan wax yar ka ifiyo isku furan marka uu dhacayo siyaabo kala duwan u dhaca laakiin kan ugu badan ee Afrikada ku badan waxa la yiraahdaa obstetric fistula waa kan dhalmada ka dhasha dhalmada la sheegayna waa dhalmada daahda ama waqti badan qaadata ama suurtagal noqon weysa qofkani inuu dhalo oo si dabiici ah uu dhalo markaasi waxa dhaco ilmaha madaxiisa oo laf ah in xuubabkii kaadi haysta ama saxarada uu cadaadis kula sameeyo lafihi miskaha meesha cadaadiska uu ku dhacay waxa dhacdo markaasi in dhiiga uu ka kala tago meeshaasi xuubabkaasi markii ay waayeen dhiiga xibintaasi way dhimataa kadibna infection ay yimaado oo darbigaasi uu dumaayo iska soo daataa taasina waxay abuurtaa isu furan inuu dhaco marka waxa dhici karaysa isu furankaasi inuu qaato 7 cisho 10 cisho qofka asagoo caadi xitaa u dhalay way dhici kartaa xaafadiisa intuu tago 7 joogo kadib isku arko kaadi socoto oo xitaa shaki uu ka galo isbitaalada may ku soo dhaawaceen ma umulisadii sidaan yeeshay maxaa dhacay something like that marka bulshada in laga wacyi geliyo arrinkaasna waa muhiim isu furanka waxa keena cadaadiska ilmaha madaxiisa uu ku hayo miskaha iyo xubabka u dhaxeeya oo ugu dambeyn dhiiga waaya kadibna go'a inta kadib waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo waxa la yiraahdo statistika qurux badan ay naloo soo bandhigay oo ay kamid ahayd dadka intooda badan 85% meelaha la gaarsiiyay mise 83 dadka inay ku dhalayaan wali TBA oo umuliso aan xirfad lahayn oo xaafad isaga shaqaysata ay wali aaminsan yihiin oo ay iska daweeyaan taasina maxaan ku raahdaa waxay u baahan tahay wacyigelin qof walba inuu ka qayb qaato xaafadiisa ka bilaawo dariskiisa ka bilaawo inta uu yaqaan ka bilaawo bulshada uu la nool yahay uu sheego waa arin walina taabanaya 85% in dadkeena xaafadaha ay ku dhalayaan dad aan skill lahayn oo xirfad aan lahayn ay dhalinayaan kadibna dhibaatada ay ku soo laabanayso isbitaalada iyo bulshadii oo dhan dhibaatada dhacaysa marka inta ay la eg tahay iyo meelaha ay nooga imaanayso waa wax aan miisaan ahaan la qaadan karin macnaha waxa kale aad ii taabtay isbitaalada 10% wax ka badan inay gaarayaan ayaga laftirkooda fistula oo ka imaanayo isbitaalada laftirkooda waxa loo baahan yahay tayada shaqaalaha iyo tababarada in la iska hagaajiyo oo ayadana kor loo qaado shaqada la qabanayo lana yareeyo fistulahan dhacayo iyo dhibaatada umada haysata qofka markii fistulahan ku yimaado sida horeba loo sheegay kaliya ma aha in qofkani dhaawac yar uu soo gaaray laakiin qofkani maskax ahaan uu xanuunsanaya xitaa waxa dhacdo dadka fistulaha uu ku yimaado caadada inay ka tagto oo waxa ku yimaado in dhalmada ay ka tagto ay dhali waayaan dib u dhali waayaan oo waxa dhacdo maxaan ku raahdaa bulshada inay ka dhaxbaxaan inay fikir badan u galo qaarkood maskax ahaan ay isku dhaxayaan dadka depressionka lagu arko ayaga ugu badan dadka lagu arko waxa la yiraahdo anxiety-ga way ku badan yihiin self esteem kooda inuu hooseeyo dhibaatooyin badan oo noocaas ah ku yimaado maxaa u sii dheer cadaadiskan inuu neerfaha ka dhaawacay oo lagu ay jiidayaan oo hadda laga sheekeynayo physiotherapy in loo sameeynayo dhibaato intaas la eg inay bulshadii gaarto annagina maxaan ku raahdaa aan ka qayb qaadan weyno yani waa arin aan dhici karin marka waxaan rajaynayaa in laga wada qayb qaato bulshada aan fahamsanayn in dalka gudihiisa lagu xallin karo xaaladaha noocan oo kala ah oo ay tagi karaan isbitaalka kaysanayna ayagana waxaan u baahanahay inaan ka qayb qaadano sidii loo gaarsiin lahaa oo social media uu ka qayb qaato waxaan rajaynayaa marka arrinkaas in la wada qaado oo kor loo qaado waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa isbitaalka kaysanay shaqada ay bulshada u hayaan iyo ururka Bisha Cas waad mahadsantiin waan ku dheeraaday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh